nin sheekh ah ayaa waxa lagu casuumay guri martiqaad inta uusan iman ka hor ayaa gabadha iyadoo cuntada diyaarinaysa lacag ayay ku ilowday miiska cuntada korkiisa kadibna sheekhi ayaa yimid cuntadii ayuu cunay uu iska baxay gabadhii ayaa markaas soo gashay lacagtii ayay weyday lacagtii waa la waayay yaa qaatay lacagta imaamka oo kaliya ayaa halkan soo galay kadib ninkeedii ayay u sheegtay waxay dhahday imaamkaas waa tuug sababtoo qof kale meesha ma soo gelin aan asiga ahayn asiga ayaa qaatay ninka uu yaab wuxuu dhahay sheekha ma dhihi karo lacagta adiga ayaa qaatay adiga ayaa xaday iska daano arintan dhan halkan aan ku xirno kadib ninka wuxuu yiri hadda kadib lagama yaabo masaajidka imaamka uu ka yahay inaan aado aan ku tukado kadibna muddo kadib sanad marka laga joogay xilli ramadaan ah ayaa la soo gaaray kadibna ninka ayaa xaaskiisa wuxuu ku yiri ka waran sheekhi hadan guriga aan ku casuuno afur u sameeyno gabadhu waxay dhahday ma sheekhi lacagta naga xaday ayaan ku casuumeynaa gurigeena kadib wuxuu yiri ka waran arintaas hadaa hubsano oo weydiino bil ramadaan ayaa lagu jiraa waxa wanaagsan dadka inaan cafino sheekha weydiina hubsano kadib sheekhi ayaa guriga lagu casuumay mar labaad sheekhi marka guriga uu yimid afurkii la keenay ayaa ninka su'aal ayuu weydiiyay wuxuu ku yiri sheekhow hadda ka hor ma xasuustaa guriga markaan kuugu casuumeynay lacagtaas ayaa la waayay ee adiga miyaa qaatay sheekhi aad iyo aad buu u naxay wuu ooyay sheekhi markii la yiri lacagta adiga miyaa qaatay wuu naxay kadib iyaga way yaabeen sheekhi oo ilmeynaya su'aashaas markii la weydiiyay kadib waxay ku dhaheen maxaad u ilmeynaysaa su'aal oo kaliya ku weydiinay nagana raali noqo hadii oo yani wax qaldan aan sheegnay sheekhi wuxuu ku hadlay hadal cajiib ah wuxuu yiri kama ilmeynayay su'aasha aad i weydiiseen laakiin waxaan ka ilmeynayaa in ka badan 300 maalmood aydan furin kitaabka quraanka ah sababtoo ah guriga marka aan imid lacagta miiska korkiisa ayuu saarnaa kitaabka quraanka ayaan idin dhaxgeliyay waxaan istahay qof kale yuusan qaadanin oo kitaabka quraanka hadhow markay furaan meesha ha ugu jirto laakiin waxaan ka xumahay uu yiri in 300 maalmood kitaabka quraanka aydan furin kitaabka quraanka walaalayaal waxa loo baahan yahay qofka qalbigiisa inuu ku xirnaado in uusan noqonin qof ramadaanka maahane inta kala sanadka oo dhan يعني قف أنا كلفرن أقرن وأنك إله سبحانه وتعالى هنون أردن أيون قلت المامي وضد الجنة أيون قلت المامي نهت أيون نقف جينيا بعد قيام أيون في عقادة يا أجر بنا أيون كه لينا قفك قرآن كتو صاحب ليهي أيو إله سبحانه وتعالى وقوله يهي هكمد نقنن قوة قرآن كهي جرودة أنا أقرن حلق رمضان كما حنين إله سبحانه وتعالى وحن ويدي سنيا أنيجا إذنك بإنه نجدّجو كوا كل حيران قلبي جوضا مولبا قرآنك آمين.